أنا هاي محو هاي وحجرتك iyo tolkayo laha laascanood waa la isugu imanaya laascanood ba idin kooni manin garacad ba idin furan ariga berbere laga dhoofiyo garacad u dira iyadana idinka dhow gaarigii yimaadana ayaan u dib u noqonin sida aynu la wada socono muddo dheer oo 15 sano magaalada laascanood waxa ka soo dilal qorsheysan oo maamulka Soomaaliland tan iyo maalintii qabsaday ahaa uu leeyahay hal doorka dadkaas 26 bisha dilkii ugu dambeeyay ee dhacay oo sababay dibadbaxyadii dadku caradooda ay ku muujinayeen iyo murugadooda waatii inay xabad iyo dhashiika ugu jawaabeen maamulka Hargeysa oo bilaabay oo ciidanka sooca ah ee beesha Isaaq ay u soo dirtay in lagu caburiyo gobolka Sool inay dadka madaxa kaga tookanayeen rasaasta dhashiikaha iyo shilkaha iyadoo loo aabayeelin dadkaasina ay ahaan dad shacaba oo aan hubaysnayn oo dumar iyo caruur u badan oo kaliya dhagax tuurayay kana cadaysnaa waxa loo geystay xasuuqa ehelkooda iyo waxgaradkooda iyo waalidiintooda iyo macallimiintoodii loo geystay iyo dhaqaatiirtoodii waxa taa u sii dheer in khadkii isgaarsiinta laga jaray telefoonada laga jaray in internetkii laga jaray in biyihii iyo korontadii laga jaray in baacmisharku hadda maantii 12 uu xiran yahay oo waxba kale la kala iibsan in caruurtii jeelasha laga buuxiyay iyo qaybta booliska oo ay qaadi waayeen in burca loo qaaday in berbera loo qaaday in habeenkii inta la soo saaro dhaxanta iyo qabowga gabadanada dhacaysa biyo qabow lagu rusheeyo oo la garaaco cuntadiina loo diiday inay cunaan oo dadkaasi wax dhintay wax nool aan la ogeyn maanta waalidiintooda aan meeshu ogeyn caruurta yarka dhalinyarada waxa ay geysteen iyo dambiga ay galeen oo kaliya uu ahaa inay caradooda iyagoo ammaana oo aan hubaysnayn ay wadada u soo baxeen oo muujiyeen oo yiraahdeen u dul qaadan mayno dilkana lagu hayo inta oo kaliya way dambiga ay galeen haday dambi galeen waxa uu si dheer intaas magaalada in laga qaxayo markii nolosha adkaatay oo yaani qof 10 maalmood qatanaan kara oo biyo la'aan kara oo koronto la'aan oo maxaa ahaa telefoon la'aan yaani nolosha inta leeg oo iskuul la'aan furayn oo milcaamada furayn oo masaajid la gali karin oo loo diiday waxgaradku inay shiraan oo isu yimaadaan oo yiraahdaan war maxaa sidee ku noolaan karaa inay yimaadeen hoteeladii magaalada oo ay damceen inay shirar ku qabtaan inay maamulka meesha ka jira la hadlaan oo yiraahdaan war dadka sida laga daayo war sidee loo noolaanaya war maxaa inoo dan inay wax isweydiiyaan waxgaradkii oo cadeynteeda loo hayo taliyihii qaybta booliska inuu albaabka ku soo jabiyay hotel ganacsi loo furtay oo laga kireeyay dad ku shiraya albaabka inuu laad ku soo dhuftay askar hubaysan oo la soo galay deedna taasi ay sababtay odayaashii waxgaradka inay bakooradahooda isticmaalaan oo iska celiyaan ninkii horarka ahaa ee askarta watay ku soo jabiyay hotelka ay ku shirayeen ee danaha ummadda sifa calal khayr ay lahaayeen war muxuu ahaay amaanka dadka iyo nolosha dadka war hal la ilaaliyo cisigooda waxa sii dheer in qof loo raadsanayo qofkii yiraahdo war hana laga daayo qofkii yiraahdo war waanu shiraynaa danaha ayaanu ka hadlaynaa muxuu ahaay hana la daayo qofkii war muxuu ahaay lagu arko isagoo telefoon sita in habeenkii guriga laga daba tagayo la raadsanayo waxa jira dhalinyarada yaryarayd maartay mobilada wax ku sawiraysay in sawiradoodii la dhigo kontaroolada oo la yiraahdo hadaad aragtaan ka qabta waaran loo soo jaray maxkamad ku sheegeen maxkamadda qabiilka looga soo jaray lama arag qabiil kale maxkamad war uu leeyahay qabiil maxkamad intuu samaystay qabiil kale uga soo jaray oo qof hal iga soo xidho ama dil buu ku xukumay hal dilo maanta waxa socda waxa weeye qabiil doonaya inay yeeshaan oo khasab ku yeeshaan weeye waxa socda waxaan u sheegayaa muxuu ahaay beesha Isaaq waxaan u sheegayaa beesha Isaaq iyo maamulkooda waxaan u sheegayaa hadii ay maqlayeen muxuu ahaay jigjiga absama ka soo hadlaya hadii ay maqlayeen mid kale oo daarood kale oo ka soo hadlaya Jubbaland oo ay lahaayeen laascanood waa la isugu imanaya laascanood la isugu iman maayo sanka iyo labada indhoodba waa la idin ka xidhaya daarood baa idin kaga wareer baabuurka aad berbera ka rartaan ee aad u sii wadaan muxuu ahaay soona maartay kililka aad u sii wadaan cidaad sii maraysaan waa daarood iyagoo idin diina idan mardaan baad ku xirantiin ariga aad jigjiga iyo dhagax buur iyo qabdahare ka keenaysaan oo leeydiin diiday ku xiran tahay waxaan leenahay rag muxuu ahaay waxgaradka iyo tolkayo laha laascanood waa la isugu imanaya laascanood ba idin kooni manin garacad ba idin furan ariga berbere laga dhoofiyo garacad u dira iyadana idinka dhow gaarigii yimaadana ayaan u dib u noqonin bal isaaqintu noolaan karay aan eegna inay laascanood ka hor dhintaan iyagu iyo inay laascanood ka hor noolaadaan aan aragne yaani muxuu ahaay isaaq ku yahay ogaade isaaq cidu yahay hays ogaado arintu haday qabiil noqotay haddaan si degdeg arrinta loo joojin oo magaalada xisaarka laga qaadin
oo muxuu ahaaye laga qaadin tiknikada magaalada dhex taalla oo albaab ka soo baacmi jira inta gaari lagu gooyey caruurta dhagaxeeda lagaga gabanayo dadkiina ay dukaamadii furan kari waayeen haddaan la joojin Soomaali weyne waad maqlaysaan